بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu waa Cabdinaas Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waa English language ama luqadda Ingiriiska waxa halkan yaala easy English aad u fudud oo grammar ah oo naxwo ah kaasoo aan ku samayn doono tijaabooyin marka wuxuu noqonayaa easy English grammar exercise for ESL/EFL a beginners part 1 kaasoo naga caawin doona sidii aan u samaynayn improvement ama qaabka naxwaha aan waxyaabo badan uga baran lahayn marka waa maxay ESL iyo EFL labadan waxay kala yihiin ESL waa English as second language marka luqadda Ingiriiska hadii ay ku tahay luqadda labaad tusaale ahaan waxa laga yaabaa inaad ku dhalatay wadamada luqadda Ingiriiska looga hadlo sida North America, Australia, New Zealand, wadanka Ingiriiska iyo wadamo qaarkood marka Englishka gurigaaga looga hadlo luqadda gurigaaga looga hadlo hadii ay tahay luqad kale sida Soomaali English wuxuu ku noqonayaa second language adoo isla markaa ku dhashay wadanka waxa kaloo jira EFL kaasoo ah English as a foreign language marka luqadda Ingiriiska mid a foreign waxa la yiraahdaa si ajnabi kugu ah marka waa luqad kugu cusub waxaad ku dhalatay Soomaaliya ee meel kale marka English language wuxuu ku noqonayaa marka labadan sidan ayaa loo kala fasiraa ESL iyo EFL marka waa bilowga marka qaybo kala duwan ayuu leeyahay halkan wuxuu leeyahay improve your grammar marka naxwahaaga aad u adkeeyo ku leeyahay si uu afdad u noqdo marka halkan waxa noo yaala shabakada dhaxdeeda easy English grammar aan soo aragnay waxaad aragtaa 6 su'aalo iyo jawaabo kala duwan oo lagu samayn doono tijaabooyinka leeyahay practice-ka iyo quiz-ka oo ah su'aalaha la isweydiiyo marka waxa yaala adjectives iyo adverbs ugu horeyn waa in aan Soomaaliyana si loo fahmo adjective waxa Soomaali lagu yiraahdaa sifooyin ama sifo adverb waxa lagu yiraahdaa fal ama kaab ayaa lagu yiraahdaa tabcan naxwaha waa grammar waxaan samaynaynaa 1 iyo 2 kan labadan ayaanu ka hadlaynaa oo aan baran doonaa kan ardayga ayaa laga doonayaa kan ayaan baran doonaya kan ardayga ayaa la doonaya marka kuwa kale ayaa soo socda oo casharada aday fara badan yihiin waxaana hubaalaa xilligii aad dhamaysid in waxyaabo badan ay kaaga soo bixi doonaan kan ayaan ku bilaabaya waxaad leedahay show all the questions waa 10 su'aaladu halkan yaala marka waa quiz aan idinku sheegay waa sifooyinkii iyo iyo kaabka afaalada everyone likes an space halkan ayaa laga rabaa inaad buuxisid person marka su'aashii jawaabteeda labada halkan ayay yaalaan kan wuxuu kuu sheegayaa hint waxa la yiraahdo ama wuxuu kuu eegayaa in sax ama qalad uu yahay marka qof walba wuxuu jecel yahay an haduu yiraahdo kan wuxuu noqonayaa honest ayuu noqonayaa qof daacad ah ereygan waa honest luqadda Ingiriiska honest ayaa la yiraahdaa honest waa qofka daacad qaabka loo dhawaaqo daacadda ayuu jecel yahay Bob waa qof magaciisa wasn't thinking a clear ama clearly kama shaqaysiin maskaxdiisa ama kama fikirin sidii la doonayay marka wuxuu noqonayaa tabcan clearly ayuu noqonayaa waad aragtay your score is 100% marka luqadda Ingiriiska saa hore idinku sheegay mar walba ereyga wuxuu galaa meeshuu ku habboon yahay ereyga waxa laga yaabaa isku si loogu dhawaaqo isku si loo qoro in ay kala duwan yihiin micnaha ay leeyihiin marka taas waa muhiim ardayda inay ogaadaan that is a animal ayuu ku leeyahay waa xayawaan marka wuxuu noqonayaa waa xayawaan cajiib ah nooc kale ah really strange ayuu noqonayaa really strange waa xayawaan nooc kale ah oo qaabkiisa aan aad ula yaabay Sarah waa gabar magaceeda waa Sahra sings waxay u haystaa well haddii ku leeyahay labadan erey relative iyo relatively laba macno ay kala leeyihiin laakiin saa ku isku si ay qormaan waxa ka kala duwan yihiin oo kaliya ereyada L iyo Y marka Sarah waa relatively sings well way heestaa sidii loogu talagalay laakiin ma aan fanaanad saa u sii weyn relatively ay noqonaysa marka ereygan relatively meel walba ayaa loo isticmaali karaa oo ku habboon you speak English marka si fiican u eeg very well iyo very good halkan waxa yaala you speak English is very well and very good marka you speak English very well kan ayaa sax ah laakiin iminka haddii aan yiraahdo you English Ingiriiskaaga is very good luqadda Ingiriiska aad ayay u fiican tahay saan ay ku soo baxaya marka haddii aan soo dego the police inspect wuxuu eegay ama
dhinacyada uu ka egay gaariga ayuu egay markuu ku istaajiyay booliiska. A complete ma dhihi karaa, the police complete inspected, a completely ayuu noqonaya, gebi ahaan ayuu noqonaya, marka kaas ayaa correct ah. marka u fiiri iminka, the police made a ayaa halkan soo gashay, inspection a car of the car, marka wuxuu noqonayaa iminka a complete ayuu noqonaya, wuxuu sameeyey police-kii a complete, marka suu isu bedelaya eeg, the police inspected the car, the police made a complete, markaasaan ayuu soo gelaya. You are a certain are smart, you certain are smart, ma dhihi karnaa? Tabcan maya, waa inaan idhaahdaa a certainly, waxaa hubaal ah in aad tahay shakhsi maskaxdiisa ay aad u wanaagsan tahay. iyo ugu dambayn number 10ka ama kan ugu dambayn number 10 wuxuu noqonayaa are you certain, ma hubta ayuu noqonayaa. ma oran karaa are you certainly? tabcan waa qaldan yahay, ma dhihi karo, bal aan eegno inuu qalad yahay in kale waa qalad. haddii aan idhaahdo sorry, try again, kan ayaa saxa. markaa ereyga wuxuu ku leeyahay are you certain, yes ayaad leedahay, kan ayaa sax ku ah. laakiin haddaad dhihi lahayd you are certainly, waa sax, laakiin ma dhihi karta you are certain, maya, saas ayuu isu bedelaa. markii ku dhammaado waxaad aadaysaa dhanka iyo menuga ayaad aadaysaa, waxaad aadaysaa sifooyinka iyo falka ama kaabaha labaad ayaad aadaysaa, show ayaa leedahay all. marka that is a table, table waa miiska, kaasi waa miis, marka wuxuu noqonayaa si fiican loo dhisay. fiicnaanta good way noqon kartaa, well way noqon kartaa, laakiin ereyga wuxuu gelayaa well build ayuu noqonayaa, si adag ayaa loo dhisay, waa miis maaragtay tayadiisa ama qualitygiisa ay wanaagsan tahay. Bob qofka la yidhaahdo shakhsiyada drives well ma noqonaysa good, tabcan good ma noqonaysa, drives well si fiican ayuu gaarigu wadaa. laakiin iminka maxaa noqonaysaa halkan, Bob shakhsiga is a good wanaagsan, well student ma dhihi karna, tabcan ma dhihi karna, waa qaladkan haddii aan idhaahdo waa well student, waa inuu ahaada good student. number 4 wuxuu noqonayaa a tuna fish taste. a tuna fish waxay noqonaysaa malayga ama kalluunka tuunada lagu yidhahdo afka Soomaaliga. dhadhankeeda taste waa dhadhanka, strange ma noqonaysaa strangely. marka labadan erey aad ayay isugu dhow yihiin. the tuna fish tastes strange, correct. ma dhihi karaa strangely? no, ma dhihi karo, sababtoo ah ma soo gelaysa ereyga meesha. Nancy waa gabar magaceeda, did well on her test, did good on her test. haddii aad tidhaahdid tabcan waa qalad oo ah in aad tidhaahdid well, Nancy did well on her test, asay noqonaysaa. marka ereyga meeshuu soo galaya iyo siduu isugu aadan yahay si fiican indhaha ugu qabo. your English is very well, ma dhihi karnaa? maya, ma dhihi karno, waa inaan idhahnaa is very good. luqadada ingiriiska aday u fiican tahay. the tiger moved slow, ma dhihi karaa? maya, ma dhihi kara, waa qaladkan, waa inuu ahaadaa slowly, inuu ahaada soo socdo. slow wuxuu noqonayaa kan keliya. you are right, ma dhihi karaa? probable, waa probably right, waxaa laga yaabaa inaad saxsan tahay waxaad tiri. marka don't ereygan 92 halkan soo galay waa qoraalka ayaa wuxuu isku bedelay binary. don't eat so fastly, ma dhihi karaa? tabcan maya, waaba qalad, waxaaba dareemaysaa ereyga ku dhawaaqidiisa markaad tiri fastly, maya, waa fast, cuntada tartiib u cun ayay noqonaysaa. iyo kanoo ah I was a real cold, ma dhihi karaa? may, really waad xaqiijinaysaa, a cold, saas ayuu noqonaya. marka kan waxbaa ka welina bedelaya, marka wuxuu noqonayaa don't eat ayuu noqonaya. marka kadib waxaad aadaysaa dhanka iyo menuga. kan ardayda ayaa laga rabaa inay yidhaahdaan show all, oo sidan ay u galaan dhexda, oo wixii aan samaynay ay raacaan. marka kan meelaha ugu dambeeya saa ku aragtaan wuxuu noqonayaa how are you, I am a well, I am a good, I am a fine. marka kan ayaan hinta idin siinayaa, correct san ay noqonaya. marka sidan ayaad u raacaysaa. marka anaga waxaan doonaynaa in aanu ku laabano meeshii, bal aan eegno adjectives, kan sifooyinkan samaynta ama ableka. marka wuxuu ku leeyahay qor adjectiveka ama sifooyinka ama sifada. gaabka, gaab waxaa la yihahdaa halkan, qofka fanaxda le waxaa la yihahdaa ilkihiisa ama teeth
gap ayaa ku jira ayaa le gaabka fanaxda ayuu noqonaya tooth gap ayaa ku jira meesha marka exercise-ka halkan ayaad gelinaysaa marka wuxuu ku leeyahay fill in buuxi gaabka halkan u dhexeeya kadibna waxaad aadaa markii aad dhamaysid gebi ahaan 10ka check si wixii aad samaysay uu kugu saxo haddii uu dhib kugu noqdo hint isticmaal ama ma ii yara sheegi kartaa ma ii xasuusin kartaa ayuu noqonayaa hint marka saas ayaa ku samaynaysaa marka hal erayuu ku siinaya Zurich magaaladii la hadlay waddanka Switzerland is the most desirable city in the world laba eray ayuu halkan soo geliyey labadan ayaa lagaa doonayaa in aad saxda ayaa lagaa doonayaa marka magaalada Zurich waa magaalada loogu jecel yahay ee qof walba inuu ku noolaa desirable haddii la yidhaahdo gabar way noqon kartaa gabar qurux badan waxay noqon kartaa maaragtay guri desirable waxyaalaha laga helo waa magaalo maaragtay aan jeclaan lahay inaan ku noolaado oo kale marka kan ma sax baa marka dambe un baan ogaan doonaa waxaan leeyahay base ayaan ku leeyahay waxaan ka tegay he is the most valuable player on the team waa shakhsiga ugu qaalisan qaali ahaan lama dhihi karo expensive lama dhihi karo waa qof aan laga maarmin waa laga maarmaan ciyaaryahankaas oo kooxda ku jira waa qof aan laga valuable markaas ayaa la yidhahdaa waa laga maarmaan ayuu noqonaya marka waxaan soo qaadayaa kan haddii aan wax qaladnay ugu dambaysi ayaan ogaan doonaa haddii hoosaan usoo dego the weather hawada is changeable here marka waxaan leeyahay kan ayaan soo qaadayaa ereyga mar walba si fiican aan u egno meelaha uu ku habboon yahay marka halkan ayaan soo dhigayaa copy paste I hope waxaan maaragtay rajaynayaa people will design more usable websites dadka sameeya qaabka shabakadaha loo dhiso waxay dhisi doonaan shabakado isticmaalidooda dadku ay u fududahay kaasna waa muhiim marka waxaan leeyahay usable marka si fiican u eg use ayaa halkan ku jirta laakiin aniga waan ka booday kan kale ayaan qaatay wuxuu leeyahay there are a noticeable change in a temperature in the room waxaan dareemayaa qolka aan ku jirno hawadiisa in ay isbedeshay ayaan dareemayaa marka waxaan soo qaadayaa kan oo aan filayo in ingiriis ahaan uu sax u yahay do you know how to be lovable do you know how to be lovable kanna waxaa ka maqan xilliga la qorayay KNO ayaa ka maqan kan waan saxinaa laakiin waa do you know how to be lovable marka taasna jawaabteeda waxaan filaynaa lovable marka ayaa halkan ka maqan si fiican u eg ga ayaa ka maqan kan waana bedelaynaa marka ingiriiska soo saxmo xilliga qoraalka ayaasaan ku soo baxay the scientists are trying to build a manageable system khubarada cilmiga sayniska waxay dhisayaan system wuxuu ahaadaba ama computer ama server wuxuu ahaadaba oo maaragtay qaabka loo isticmaalo noqonaya mid aad u fudud marka waxaan soo qaadaya kan ayaan soo qaadayaa kan kale waxay ku kala duwan yihiin si fiican indhaha ugu qabo waa muhiim email waxay ka timid saa xasuusano electronic mail is usually traceable inta badan waa la ogaan karaa meesha emailka ay ka timid marka ma la ogaan karaa bal waxaan ogaanaynaa in la ogaan karo emailka marka waxaan soo qaadayaa kan ayaan soo qaadayaa marka waxaa noo haray laba kale ayaa noo hartay halkan waxaa yaala the teacher gave si fiican u eg ingiriis isu bedelay students a debatable topic macalinka ardayda wuxuu u gudbiyey ama uu siiyey waxyaalo laga hadlo arrimo laga hadlo oo si qof walba fikradihiisa kala duwan uu u dhiibto ayuu siiyey marka ereygaas muxuu noqon karaa halkan u eg debatable ayaan soo qaadayaa kan marka kana waxaa ka maqan iyo waxyaalo kale ayaa ku jiraan topica ugu dambeyntii wuxuu leeyahay this is an exchangeable image file format marka ama jpeg ama gif wuxuu ahaadaba waa mid exchangeable marka muxuu noqonayaa exchange able muu noqonaya mise kan ayuu noqonayaa kan ayaan soo qaadaynaa marka qaladkeeni ama wixii aan saxnay halkan marka la soo gaaro iminka ayaan waxaan leeyahay check ayaan leeyahay correct well done your score is 100% ama waa 100% marka ereyada meeshii ay galaan ee sida ay yihiin saas ayaad ku garan doontaa marka waxaanu samaynaynaa waxyaabihii aan ku aragnay spellingka xilliga aan qoraynay waanu bedelaynaa insha allah
kadib waxaanu ku laabanaynaa dhankii iyo meniga ayaan aadaynaa marka kani waa soo aragnay bal iminkaan eegno yes no question kanna ardayda ayaa laga doonayaa haddii sidaan u furo show all ayaan leeyahay marka wuxuu ku leeyahay halkan waxaa lagaa doonayaa in change a statement into yes no question u bedel ayaa lagu leeyahay statementiga adiga ayaa laga doonayaa marka he's Mexican ayaa lagu yiri marka iminka sidaan ugu bedelna waxaan ugu bedelayaa tabcan waxaan leeyahay capital letter ayaan ku bilaabay shaqal dheer ayaan ku bilaabay mar walba xusuuso saas ayaa lagu bilaabaa waxaan leeyahay is he Mexican ayaan leeyahay sidan is he Mexican is Mexican marka su'aalaha wuxuu leeyahay change statement into yes ama ha ama maya ku bedelay ku leeyahay kana there is a computer lab in the building waxa yaala a computer lab ayaa dhismaha yaala meel computer waxyaalo lagu sameeyo marka waxaad ku bilaabaysaa un is there a computer marka waxaan easy ayaan ka dhigayaa ama fudud ayaan ka dhigayaa computer isaga ayaan ku laabanaa a computer lab in the building waa calaamad su'aal she wants a pet waxay doonaysaa xayawaankan dadka sida eyga iyo mukulaasha iyo bisada qofa soo yaqaano ayay doonaysaa waa gabar she ayaa lagu bilaabay marka waxaan leeyahay does soo bedelay iminka eega does she wants a pet calaamad su'aal kadib the dog understand you eyga uu ku fahmayaa marka wuxuu noqonayaa kana does the dog understand xilliga wax la qoraya mar walba qaladadan ayaa la sameeya does the dog understand you eyga ma ku fahmayaa he has a car ayuu leeyahay kan he has a car kana waxaan leeyahay does he have a car mar walba eyga ayaan soo geliyay halkan kadib waxaan leeyahay he studies for test last night tijaabadii xalay ayuu si fiican u bartay iminka fiiri did ayaan leeyahay marka he study oo sidan ah did he study for the test last night marka isbedelka halkan ayuu ka imaanaya waxaan leeyahay did he study for the test last night does is saasay noqonaya she works in a clothing store waxay ka shaqaysaa dukaan dharka lagu iibiyo iminka waxaan leeyahay does she work ma ka shaqaysaa waa gabar saa ku aragno does she work in a clothing store oo sidana calaamad su'aal waxaa kaloo halkan yaalla he can leave school early wuu ka tegi karaa iskuulka ama madrasada waqti hore waa ka tegi karaa marka waxaa lagaa doonayaa in aad tidhaahdid uu ka imaado su'aasha yes ama no ayaanu rabnaa marka can ayaan isticmaal marka can he leave school ayaan leeyahay early marka calaamad su'aalkan ayaan doonayaa jawaabtu waxay noqonaysaa yes or no ama maya ayay noqonaysaa he enjoys listening to music marka waxaan leeyahay does ayuu imaanaysaa he enjoy kan aad ayuu muhiim u yahay does he enjoy listening isagunba waxaan raacayaa qoraalka dushaansa ayaan raacayaa listening does he enjoy listening to music saan ayuu noqonayaa calaamad su'aal ugu dambayn there are many Asian students in that class waxaa jooga classkaas arday badan oo waddanka Asia ka soo jeeda marka kan ugu dambaysana wuxuu noqonayaa jawaabta oo ah imisa arday ayaa meesha ka dhigata classkaas oo maaragtay oo Asianka Asiatica marka waxaan leeyahay are there many markaas isu bedela eeg Asians waxaan isticmaalay capital letter ama shaqal dheer ayaan isticmaalay sababtoo waa magac students marka eeg Asians ma dhihi kari marka waa inaan idhaahdaa Asian keliya pluralkan kan ayaa ii sheegay students kan ayuu noqonaya marka Asian ayuu noqday kan oo kana students
in that class sana ayuu noqonaya marka muhiimadeena waxay ahayd change bedel a statement into a yes no question u bedel marka wuu noqonayaa he's Mexican is he Mexican marka wuxuu noqonayaa yes or no ayay noqonaysaa marka waan fahnay iminka waxaan leeyahay check waxaan qaladnaan aragno correct your score is 100% ayuu leeyahay sana ayuu soconaya marka waan xirayaa tijaabo ayaad ku samayn kartaa menu ayaan ku laabanayaa kadib kan waxaa laga doonayaa ardayda in ay sameeyaan ayaa laga doonaya marka tusaale ahaan haddii aan ada show all kan ugu horeeya ayaan waxaan idin siinayaa hint ayaan idin siinaya do you have small children waxaad leedahay ku bilaabaysaa no hakad ayaad gelaysaa I don't ayaad leedahay sidan I don't marka kan wuxuu answer the yes question do you have small children no I don't maya mali marka haddii aad garan weysay su-aasha hinta ku hormar intaad dhihi lahayd show answers intaad dhihi lahayd waxaad leedahay hint ama waxaan doonayaa inaad iyara xasuusid wixii aan samayn lahaa marka qaabkaas u shaqeey waana muhiim marka kuwa kale ayaanu soo diri doonaa oo 10 ilaa iyo 12 ayuu noqonayaa marka waxaan filayaa in aad ula dhacdeen 10kan yar ayaan ku baranay easy English grammar exercises for ESL EFL a beginners part 1 wuxuu ahaa qaabka improvement loogu sameeyo marka waxa xusuus mudan xilliga aan ku jirno barashada luqadda Ingiriiska waxaanu inta badan ku hadli doonaa luqadda Ingiriiska isla markaana Soomaaligana waan soo dhexgelin doonaa sababtoo waxaanu doonaynaa in qaabka loogu dhawaaqo ereyada Ingiriiska aan isla baranno tusaale ahaan haddaan yidhaahdo improve your grammar haddaan yidhaahdo Soomaali p kuma jiro marar badan waan ka hadla 10 badan ayaan ka hadla Ingiriiska haddii aan yidhaahdo improve ma noqon karto sababtoo ereygan waa in loogu dhawaaqaa p loogu dhawaaqaa marka waxaan leenahay improve your grammar laakiin haddaan yidhaahdo improve wuxuu noqonayaa waxaan la fahmi karin marka wuxuu noqonayaa improve your grammar ayuu noqonayaa marka wixii macluumaad casharada kale mar walba info@sologroups.com anigoo macalin cabdinaasir intaan hawada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi